بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo. cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah woofiyo, inta baahan Allah deeqooyinta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob. qodobka koowaad dani oo hadlay oo khudbad jeediyey kelmadaan ka oranaya. qodobka labaad culimada reer Somaliland iyagana kelmad baan ka oranaya. dani wuu hadlay, wuxuu ka sheekeeyey sheeko dheer buu akhriyey, laakiin nin Puntlander ah, reer Puntland ah, oday ah, wadaad ah, ummadaas halkaa degtana waxgaradkoodii ka mid a. waxaan Soomaali u caddaynayaa inuusan nagu matelin siyaasad iyo maqaam aanu leenahay haddaan nahay reer Puntland, oo aanu ku leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo halgankeeda iyo midnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaybtaan ku lahayn ummadda Soomaaliyeed dowlad dhiskeeda inuusan nagu matelin baan horta caddaynaya. waxaan caddaynayaa cidda nagu matashaa inay tahay isimadii ka hadlay Puntland, kuwii Garowe ka hadlay, boqorka, garaadka, culimadii reer Puntland oo caddeeyey oo bayaaniyey Soomaali meesha ay reer Puntland kaga jirto, dhismihii Puntland raggii iska lahaa, aragtidoodii iyo mowqifkii ay qaateen oo ay dhex geliyeen dastuurka oo ahaa Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya. Soomaaliyana waa hal mid, lamana kala goyn karo. naguma matala dani waxa uu sameeyey inuu haddeer isku dayo inuu isdaad raaciyo 2 wiig iyo maalin kadib markii ay Israa'iil ku soo duushay Soomaaliya. sababta kaliftay hadda inuu hadlana ay tahay Saudi Arabia isbedelka ay ku samaysay jawigii oo dhan iyo siyaasadii oo dhan. intii ka horeysay Soomaali baa tihiin ilowshaha idinku badan, sida umushi baa degdeg wax u ilowdaan, bal aan recap idinku samay, dib aan idin xusuusiyo. iyadoo aan wali soo shaac bixin baa waxaan idin sheegay dani iyo ciro in la isugu geeyey Imaaraadka, in la yiri Israaca oo isla shaqeeya. ma aragteen oo inina ku aragteen? waxaa dhacday shir bay ku qabteen Nairobi wasiirada dani iyo wasiirada ciro. kuwa ciro waxay yiraahdeen reer Puntland waxay nagala shaqeynayaan inaan go'no. reer Puntland waxay damceen inay ka jawaabaan oo hadal mala'aan macna lahayn oo ahaa annagu kama wada hadal SSC khaatumo iyo waqooyi bari, gobolka waqooyi bari arrimihiisa kama ana wada hadlin. midnimada in la wada amnigan ka wada hadalnay iyo in la wada shaqeeyo. iyaama kadib waxaad aragteen juxa oo wasiirka arrimaha gudaha u ah dani u ah oo leh Puntland Somaliland waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato. waxaad aragteen oo kale ciyaaladii qaaqlayaasha ahaa iyo kuwa wariyayaasha isku sheego oo lacagta siiyo oo kulligood u niikinaya Somaliland inay go'do, inay raalli ka yihiin. intaasoo dhan waa idin xasuusinaya. shir bay ku wada qabsadeen ciro iyo dani magaalada la yiraahdo Nairobi. kadib waxaa aragteen shirki ka dhacay Ceerigaabo. ciro isaga idiin sheegay dani hadduusan igala shaqayn kharashkana bixin shirkaan ma qabsoomeen. shirku muxuu ahaa? annaga iyo Puntland looma dhexeeyo. macnaheedu maxay ahayd? ciro wuxuu sheegay xuduudoodii inuu ilaashanayo. xuduudda waa Garowe bartankeeda iyo Boosaaso. kama uusan hadlin, bal iska dhaafay waxaan idiin sheegay in loo soo bandhigay in loo jaro, inuu horta Puntland inay taageerto Somaliland inay go'do. isagu hadduu rabo inuu raacana in loo jarayo, inuu aad u farxay oo gees ilaa gees qoslay baa idiin sheegay. waxaan idiin sheegay oo idin caddeeyey markii ay dhacday qadiyadii Israa'iil duulaankeedii ay dalka ku soo qaatay inuusan kelmad ka oran karin. iska dhaafe aydiid oo si iska fudud u hadlay oo midnimada ka hadlay oo Xasan Sheekh isagoo caayay midnimada dalka yiri Soomaaliya waa mid. waxaa lagu amray inuu dib uga laabto oo uu yiraahdo cidna kuma matalo, laakiin juxa lama dhihin ka noqo.
عيديد كانوا قال لي عيالذين والله صوف صحي بيركي كلا بحين لكن جحال ما أورن كلها وهذا الكا كلها أنت صودن وحارة عدا الله صعته عيالذي سي يو كوا قبيلات كتاجروا أو رجيا دمر سوق جرو أفرع على تكسعدات كعاية هذا ركتين ما أنت وحيري يقول ما تشان عيدا نينك عيد عاية سجى وطالع بس كهستوس كتور كل يواقع عن ضمير الهين ما دام أوسن قيم جرين يا أركتي قفك مسلم كأه وإنه قيم ليه وإنه أركتي ليه وإن هذا يبض بورها تلاوذ اللجوجي ماذا وإيه اللجوجه وإن هذا كتناسلين وهذا تزعزع الهين وأنا هبط بيشو لنا كهذا دفن أو سياسي وأوسن مالي ما ملكوك حيسن وهذا نسكت بقولنا ساعة دولي هذا نقول كل هذا يجوا حضرك دون تكوى شري لها دقا الله نورنا هنا وهي دارود بدرير دون حسب بقدولينا أو حضرك دون تنهور دايو هذا له مني ما مني ما حضرك دون تان لأن ضد ما هتشره ويقول شبو يطلعي لبلاس موقف مبدأ معها مالي مال درم بكارا دعيسا سياسي وإشيقاته ودنتي إكته من الليبانياش اللي يقول ليباني بوكدي بس كوستيزون كطوري وغير مستقبلك هذا الله حنو هذا أكو هذا شيء اللي جوهر كين هذا الكيس كهجاكية كوين وحفلطية وهكمل هذا الكيسة حدود يده ولا يغان والشالي مركي شيئا يعني ما كجوابت عرو وحكش شيء وسيردي سي مركي أي إسرائيل ترواه اعترافه أو الشركة لقب صدي وسيردي سو حكده شيء إن أرنتن أي صورة الشيء كدي مركي دني آد وقال شقي إرا شيء بابليك اللي هو شيء محيطها من دماغ هذا وكشيء وحكلو نو شيء وخطبة دي سكو شيء لبعتين كتير بنتو لان أو يروار بكما هي عافماتك وبابا هذا كوربان دي شيء وسيرة ما نتو دورتا وقضى بس محيا الدولة نمو إيو إن هو كان منا وأنا السمايسنا أقوان تهدينا ملها قرات إلهي سي وكم معمول كرنا ملها وسير بقى وحي يقول هذا كور يسوي ولي بقى دفاعي يسوي إنتان ودودني وحي يقول والله وهرنتها ما أنتوا دورتا يقول دميس وحد رادين يسابيري إن الله كل أنتي أضو دبعته وساردها ربينا وجور أنتي وسارد هذا مركز لما بلوت سو سعتي أو وسوقيس بعد نصاع وسينيها هذا الكمركة أبلودي بوح كليه إيكاد وسارد دم يا أهرمه تبى إنه سجاي معنا هنا ما واحد كلو شدة بحشرة هذا وسو أوكي متي ها بس هؤلاء يقول تاجني نمضي صدق كاجي دقيقة 8 دقيقة يسوق وكهر لي معه أنت كلنا ولو كله تجيه دم بوسن كان هاي عافيمات كبير ورك ما هي وحكي دعي سياقات العكتي كوفيد 19 لو جسوا ديبي ودور 8 مليون ولا ير كودس اسبيتالada cabashada laga cabanayo wax leey ma ba ogiba warka ma hayo wasaaradu warka hayaa iska yar dan uu kale yahayna ma jirto khasnaji baa u jooga wixii soo gala isaga u ururiyaan meel bay ugu shubaan waxaan hayaa wiil 10 bilood aan mushaar qaadan oo soo wacay walaalkiis soo ii soo dir lacag 10 bilood mushaar leeymas waxaan hayaa mid yiri 7 bilood mushaar ma qaadan mid aniga afkayga aan kula hadlayna wuxuu igu yiri 4 bilood mushaar ma qaadan dadka mushaaradoodii buu haystaa fartu wuxuu noogu fiiqayaa xasan sheekh marka koowaad xasan adaa noo keenay hadduu xun yahayna adaa xun hadduu fiican yahayna waad la fiican tahay marka xasan waa tuug baa tiri xasan hadduu tuug yahay taada adigu ka war xagee geysay mushaaradii dadka maxay tahay hantidan aad ka samaysanaysid caalamka ganacsiga waaweyn oo shirkadaha aad kaga furatay Zambia iyo Nairobi aad kaga dhisanaysid adiga caruurahaagu aad lacagta saas u kala guraysaan oo hantida aad dhisanaysaan oo beeraha iyo geela iyo hantida aad samaysanaysaan yaa leh xagee keenteen maadii ijaaba lacag watay markaa soo gasheen meesha maxaa tuug kale iigu tilmaamaysaa adigoo ka tuugsan dhulkiibuu gatay dhul aa gadataadan aqoon ee waa gadan lahayd inaan lagaa yeelayna waad ogtahay laakiin wax kale miyaa reebta wixii dhulka ka sarreeyay Soomaaliya qaadan ma waxa reebtay baa jira maxaa tuug kale waxa la maroodigu takarta isaga saaran ma arkee takarta kan kala saaran buu arkaa wuxuu kaloo noo sheegay oo uu yiri waxa jirta siyaasad xumo dalka ragaadisay 30 sano la soo dhaaf xabada saxda oo sheegay waxay ahayd hadda waxa ka masuula siyaasiyiinta saga kamida isagu waxa u dheer xasan kii ka horeeyay wuxuu yiri 3 sano iyo bar waxaan ka shaqeynaa kursiga ka rido
afartii sano hadda lasoo dhaafay xasan joogeen wuxuu noo sheegay xasan inuu baabi'iyo ka rido kursiga shaqadiisu intaas kan ku xiga haddii xasan la bedelana 4 bilood baa u haray la bedelana saasoo kale u qabsanaya maba laha aragti aan ahayn inyow aragti aan ahayn maba lahaba ra'yi ma keeni karo marka haddaan u dhahay reer puntland war ninkaasi siyaasadda lagu matalo dhib baan ugu dhacay balaaya madax nool oo ka dhigay dadka Soomaaliyeed oo noona dulqaata na suga kuwii dariska la ahaa oo shalay dhiigga iyo dhacaanka loo shubay cadow buu uga dhigay ciyaalo qaaqlayaal intuu ku saliday oo shalayna difaacayay baa maanta caayaya aragtiisu waa intaa waa aragti ku salaysan macaan dharagla maanta maxaan cunaa ku salaysan wey marka Soomaaliyay hana noo qabanina waana ka soo kacaynaa insha Allah waana ka baxaynaa hana la sugo Soomaalida intaasaan oranayaa hana loo dulqaato ilaahay subxaanahu wa ta'aala wayna ka saaraya qodobka intaasaan ka oranaya qodobka labaad culimada reer Somaliland qaarafkooda xirtay sida dirir iyo mustafa iyo kuwa kale badan qaar ku qancay Israa'iil itiraafkeeda oo saf soo galay oo yiri waa taageersanahay dawladda itiraafka soo heshayna oo ku maadsantay iyo qaar diiday oo ka horyimid horay waxaan idin yiri reer Somaliland culimo waa imtixaamantiin ilaahay mixnad buu idin soo dhigay waxaana la kala cadaynayaa ilaahay ummadda u kala cadaynayaa liyamiiz Allahu al-khabiitha min at-tayyib maanta kala la kala gartaa qofka wanaagsan iyo qofka dusha ka wanaagsan qofka si sax ah u wanaagsan iyo qofka korka ka wanaagsan maanta kala la kala gartaa qofka runta sheegaya iyo qofka waxa kan xirfad isaga noqotay maanta kala la kala gartaa sheekh ilaahay ku xiran rabbina ka baqa iyo sheekh hawla kala u dheeyihiin maanta kala la kala gartaa waa rag waa fashilmo laba nin waa diideen waa la xiray taariikhday galeen nin salafiya iyo nin suufiya maxamed wali waa xiran yahay saan maqlay ilaahay ka soo daayay sharaf iyo karaamay leeyihiin taariikh bay galeen qolo dowladooday raaceen qabyaaladooday raaceen qolana waa noo aamustay laakiin looga hari maayo aamuska marka kaleba waa idinka mikrofoonka hortaagan oo noo sheekeeye ma waxaad nooga sheekayn doontaan xayd iyo nifaas iyo weesadu waa jabtaa iyo soonkii waa buray muhiimaddii dalka iyo dadka diintoodii haddii aydinaan dan ka lahayn ama aydinaan ka hadlayn ama aad dowladda inta ka baqdaan hor ordaysaan ama aad bashidaysaan waxaad ka midaysan tihiin oo ilaa iyo hadda aan arag hal qof oo idinka mid ah oo ictiraafka ka horyimi ma arag xataa kuwa diiday Israa'iil diiday ma maqlin inay diideen ictiraaf wa hal qofna ictiraaf macnaheedu maxay tahay Soomaaliya in la kala gooyo wadaad sheekh umal ayaa si fiican uga hadlay xafidahu Allah wa ra'ah si fiican ninkaas xaqii lagu lahaa waa ka gutay rag badan oo kale oo ka hadlay oo meelo badan ka hadlayna way jiraan mawjada mid waxaan arkay marka wadaad waxaan arkay khudba akhriyay oo masaajid hor taagan waxaan isirigtoo maqaadku cunaa mid jadiida ah oo dheer oo la sheekhu cuqdad buu qabaa mashacaba ninkaas kuwa meesha aad baqaadka looga cunayo waa shakiyo waxaan isiri talo de wadaadaduna ma cunaa muxuu ka wadaa cuqdad buu qabaa isaga waxa ku jira kuu sheegaya isaga walba jadiid waa ka filmayn Israa'iil salafiya al-mukhabaraat baa la yiraahdaa Israa'iil iyo wax ka shisheeyay inay taageersan waaba la ogaa oo inay taageeri doonaan waa ogaa mid waxaan arkay barbaraawi waxaan arkay waxa la ii koofiyadda Israa'iil ilaahay ka cabsada dadka ay leedahay diintoodii baa laga gatay oo ay ku sujuudayeen oo aakhire danteed iyagoo la wada arkaysa ninkii ka celin lahaa baa tahay u hadli lahaa baa tahay hagaajin lahaa baa tahay hagi lahaa baa tahay ma idinkoo dhan culimooy imtixaankii waa ku dhacdeen saa u dhantiin hal qof oo idinka mid ah oo yiri war haddaanu Soomaalinahay ictiraaf waa haysanaa Soomaali baan la leenahay dowlad ictiraafna cid kale ugama baahnin kuwii laga xishoodo sanka laga qabsado caalamkoo dhan ka cararay Israa'iilna wacad Allahna u hoosgalayn ilaahayna aanan kala dhimanayn
oo malcuun uu ilaahay lacnaday aanan ku kala dhimanayn cid tiraahda waa laydinka waayay ictiraafka u baahan tahay muxuu mawaadan ictiraaf haysan calan mawaadan lahayn kuu yaalla kaana siib kana saar aan siduu yahay eegee sarreeyo ma nusqaame kaana siib kana saar calankii laydiin saaray soomaha ood haysateen daakhiligii 1954 la qaatay ood 1960 ka taagteen hargeysa maxaa kaa maqan calankii weli wuxuu yaallaa un-ta kursigaagii weli waa lagugu matalaa maxay tahay waxa kaa maqan oad raadinaysa I know xasan sheekh inuusan karaamo iyo sharaf midna lahayn fiisana uu ka mid yahay dhibaatooyinkan wax soo dadejiyey aad ku celceliseen kulligiin xasan tuugadaasu ka mid yahay ina qabsatay oo qaar idinla joogo lacag buu ka fiirinaya caruurihiisa iyo hataa hadduu si fiican oo dowladnimo iyo uu samayn lahaa dadku dacwo kama qabeen and I know that laakiin taasi ma keeni karto mana kalifi karto dalkaanu ka go-ayna dhibka dadkaa la qabtaan meel kastoo ay joogaan dhibkaas waa wada qabaan dadku waa wada marayeen wax idinku gaara ma jiraan waxaad tirahdeen dhibaata waana loo geystay 50 dhibaato ka dambaysaad idinku geysateen kuwaad haddeer la soo qarqaraysaan cirra markuu calanka markuu maabka qabanayo oo uu garowga iyo boosaaso sheeganayo soo dagaal maaha waxa uu ku baaqayo soo maaha idinku inaad soo wadaan colaad soo hadda maadaama aad dhulkoodii sheegateen dadka aad gobolladaas degaa ood xoog ku sheeganaysaan soo inay idin yimaadaan oo idinla diriraan xaq uma leh soo masaa'ibtayna ku wada dhacday idinkuna qayb kama idin cid kastaana qayb kama ah maxaa idinku gaara waxba culimooy waa fashilanteen haddaad tihiin culimadii gobollada ka soo jeeday waad fashilanteen ilaahay u toobad keena rabbi subxaana wa tacaala u noqda ilaahay u noqda tolkaa mowqifka khaldan laguma raaco dani baa aniga tolkee kuma raacsani iguma matalo kuma waafaqsani hadduu dhaho waa goosanayaa waa ka soo horjeensanayaa life baan u imaanayaa dadka ku kacaya oo meesha ka saarayaan ka mid ah ma ujeeda maxaad adigu kaagii u hor ordaysaa maxaad u aamusan tahay maxaad dhabarkiisa uga soo hadlaysaa maxaad u difaacaysaa maxaad diintaada u iibsanaysaa sida cabdullaahi baashi kursi yar siistay oo iyagii ay sheegayaan waa boqor buur madow baa ku niikinaya buur madow oo isagu mooryaan baa ku niikinaya oo leh kaasu wixii aanu keennaba ayad iyo xadiis buu u helayaa markaan idin lahaa wadaadow siyaasadda hormuud ka noqda haddaba gelinine hormuud ka noqda musiibadaasaan idinka baqayay ma haysaan waxaan ka hadlayay maanta gacantaba ku haysaan wadaadow gacantaba ku haysaan haddeer isdaba qabta shaydaanul carab waa la cayrshay wuuna ina ka baxayaa sida la sheegayo alaabtiisa buu urursanayaa wuu ina ka bixi doonaa markuu ina ka baxo wadaadow tani mid aad geydaan maaha meel aad joogtaanba ma geydaan inaad raciyad noqotaan ee waxaad geydaan booska aad leedihiin inaad timaadaan mowqifka aad leedihiin inaad qaadataan inaad dalkiina iyo diintiina iyo difaacataan falastiin waxaa ka mid ah hadalladii ay akhriyayeen shacbaan iyo kuwa lamid ah ina cali warsameeyo oo myanmar dadka ku leynaya soomaaliya heshiis bay la tahay chineska heshiis la tahay waxay la tahay heshiis wadamo xasuuq geysta maxay israa'iil kaga duwan tahay israa'iil muqadasaadkii muslimiinta haysataa awqaaftii weeye masjidkii saddexaad laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa 3 masaajid uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam bayt almaqdis bay haysataa qiblata rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam al-uula bay haysataa qiblata al-anbiyaa wa rusul bay haysataa dhulkaas waqafkooda wax ku leedahay bay haysataa waxaa dheer muslimiin bay leedahay gebi ahaanba wax jira ma hortiinay ka tiri cirray hortiisa ka tiri virtual government way dowladda Falastiin wax jira ma laakiin idinku dowlad jirtaa tiin bay idin tiri beentaasay hortiina ka sheegtay beentaa weeye waa ku dhici weydeen nac allah kugu taale ilaahay kugu lacnaday baa tahay Falastiin dhulkeeday leedahay adigaan jirin intaa waa dhihi kari weydeen waxaa laydinku sabay oo laydinku sabay been laydin sheego kuwa miidiyaha ku jira loo qaybiyo leeru sheego ku celceliya ictiraafka hadda soo dhacaya dowlad kala soo raacaysa saacada kadib uu soo dhacaya maalmo kadib uu imaanaya khalaas 30 sano been ay idinku wadaan bay heleen 30 sano dowlad ictiraafsan cirro hadlaya dowlad hadda la yaqaan oo ictiraafsan yahay bana yaa ku ictiraafsan xagee laga ictiraafsan Israa'iil oo sanka laga haysto baad hoos gashay waana ceebayseen dharkaan naga dhigteen waana qaawiseen adduunkii baanu mari laanahay oo leey maxaa idinka khaldan Soomaalida waxaan u qabnay waalidad bala
ilaan waa ka hadli jirnay carabtaanu saa u rifi jirnay waxale maxaa idinku dhacay markaasaan waxaan nidhi war waa xoogaa kharibano waa noo shaqayn laada xoogaa khariban war qof calan ku sujuudaya horey looma arag yahuudeed calan yahuudeed oo laga saarayo magaalada bartankeedii laga daarayo isagoo nal ah horey looma arag wadamo badan baa heshiis la galay waxaan kaloo idinku khatimayaa horta waxaas waa iska baaba'ayaan oo waa iska tegayaan baraankii buu ahaa horaan idinku sheegay shaydaanul carabna carar israa'iilna haddii mar aan la joogi karin eriyada yamanna laga saaray suqadarana laga saaray meesha ay u soo socotay oo ay rabtay inay ka maamulato yaman uga maarmi mayso marka iyadaaba iska tegi doonto iska qulqulaysa waa la doogana yaan la dacaroon yaan la fogaan dad badanoo waxaa jira shacaba qaar ila soo xiriiraya aqoon-yahan iyo khubaraba leh oo aan raalli kahayn waxaana rabin in badanoo ka mid ihi sarkhaan baa moodaa inay yihiin oo 35 sano beentaa lagu akhriyay dadkuna waa dhalinyaro wax ka horreeyana maba xasuustaan mana yaqaaniin qofkii 45 ilaa 50 jira dowladdii horena waxba kama xasuusto wixii ka dambeeyana been baa lagu waday marka inuu iska aqbalo waa run muxuu kaloo garanayaa oo arki karaa waa run laakiin in badanoo ka mid ah oo kasoo horjeedaa jirta waxaan waana laga baxayaa insha allahu tacaala dalka iyo midnimadiisana waa la difaacayaa waana la ilaalinayaa safarka uu xasan sheekh maxamuud ku imaanaya laascaanoodna dani iyo kooxdiisu hadday caayayeen caydiid baa caayayay caydiid wuxuu sheego aan looga daba imaan waa wax dani rabo oo maxaa u caayaysa haddaa midnimada aaminsan tahay runtaa tahay midnibu u imaanayaa gobolladaas waqooyi bari la yidhaahdo maamul goboleedkaasi waa maamul goboleedka xudunta u ah soomaali isku xirnaanteeda haddaa dadkii ehelka ahaay oo dhiig iyo dhacaanka loo shubayey baa lagugu diray markaas adna ciyaalla intaa ka adeejisay tiri caaya ay maalin walba caayaan ma ujeedaa waa ka baxaynaa insha allah waa la dooginay dadow yaan la dacaroon rag badan oo fashilmay baa jira ama dibadaha jooga ama dalka jooga oo ku fashilmay arrintan imtixaankan ku dhacay baa jira oo ceebi ka raacday oo hor ordaya khayr baan idiin rajaynayaa dhammaantiin meelaad joogtaanba ilaahay subxaana wa tacaala dalka iyo dadkaba haynoo xafidayo diinta intaasaan oranaya billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu